galabtaa lagu imaanay kolba daaqadaa lagaaga soo dhacaya saacadan ogeyn baa lagu imaanaya waa waxa ugu yar ee lagugu sameeyaa marka kol waliba ma fiicna in lagu dacweeyo oo xagga caruurteeda lagaa dacweeyo haddii caruurtaadu caruur waaweyn tahay laakiin aniga maantay ilaahay baan ku dhintay hadday hooyaday tagto maad aragtay meeshan caruurta ay tiraahdo inantani caruurteedu way dayacday ani ayagii baa i jecel oo gaalada candhuuf ku tufayo ay raacahayn alxamdulillah laakiin maalmo kamid ah haddii laygu oran lahaa xubiye waa lagu dacweynaya daan waa isku xaari lahaa beenku ma sheegaye anu waan isku xaari lahaa xaafadahana waan ka guuri lahaa waayo aniga awlaadeyda wax walba igaga qaalisan suhuur marka aniga waxaan ku yiri walaal tag intayna tegin adigu barnaamijkan fur adigu maad aragtay isbarax sidaan ba hadhow lagaaga shikino la yiraahdo yaas markii computerka war gabadhan wayba soo dacwooto qolaaba dacweynaysaba qolaaba daba joogtay ma garanaysaa waa best inay markaas samayso cadowga caruurtuna ha jawa caruurta islaamkana waxa doonayeen gacanta ka saaraan ee daroogistayaasha ah ee qaniisyada ee maqnuudada ah ee bilaa damiirta ah ee dulliga ah ee xaaraanta ku koray ee xaaraanta doonaya nacdatullaahi alayk wallahi bilaa nacdal baa dushina ku dagaysa war waxa doontaan sameeya ee caruurta islaamka gaalada gacantooda hana gelinina hooyo maskiinada oo Soomaaliya oo qurbaha joogta oo kii dhalay uu dhaqaajiyay inaad maanta ugu dartaan xanuun kale oo gaalo intaad u tagtaan aad maad aragtay xaraabo darteed iyo baal tooga aniga soddon qolkayga dhaafi iyo hinaase inaad maad aragtay waxaas u samaysaan wallahi bila waa shakhsiyad xumo wax dhintay baana tihiin islaamkana cad kuma leedin maqnuudin baana tihiin dumarkan wax ma dhaantaan anaga cod dheer nagu taageerayna wallahi anigu Norway ma degani laakiin hadan maanta Sweden gabadhaas deganaan lahayd wallahi caawinaad badan baa siilaha ragga Norway jooga ama dadka Norway ku nool suhuur gacan balaaran siiya bilii suhuuru istaaga diyuusiintaana ka qabta war dhiidiyo oo dhiigu boqolka ha in tago oo maxay ahayd waxyaabaha xun Soomaaliyeed waryaara biriwaad ooyeysaan ma waxa doonaysan Ethiopia ka dhigataan ma waxa doonaysan inaad qosashaan ma waxa doonaysan hooyo Soomaaliyeed iyo caruurteeda lagu leeyahay nafsi kartid oo ma hadli kartid oo online ma soo gali kartid oo Soomaali waraa gabadha sameeyna hatta dumarka aytama maaha anigoo kala ah anu waan aytama waxaan doonaan iraado laakiin suurma aytanta xatay bal ka waran hatta ma gama qabsato waa afkaaban weeyaan way iska xaraabadaysata ma in siiga lagu qasbaa ma inuu sirka qabtaa war anigu halka waxaan ku hayaa dumar balaayo iska dhigi jiray oo la dhageysan jiray oo maxayday oo waxaan arkay qolkiisa jeega araaraxaya sidii laxfatada laga qabtay oo ma daragtay hore bixii kale naala shaklakum wariya damiir yaasha ha dhageysanina dulugu dhalay ka yaaca oo ka baxa qolkiisa harastu dhashay sida aygo kala 7 jeer iskaga maydha bilaa damiir baatiin wariyaara sida inanta waa biiskari birinayni abiis garaynaya sida baad dhageysan kartaan sida baad magac u dhigan kartaan sida baad la qosli kartaan wariya ma damiir baadna lahaynina sida suhuur oo binti shariifada oon caytamin oo inan maskiina amees lagu abiis garay rag iyo dumarka dhageysanaya bilaa damiir baatiin haddii sirni laga hayo iska soo bedesha oo magacyo kala soo qaata maxaa iniga waalay ma magaciina kala garanaya daadinku is abuse garay naftiina ila adiga sidaas ka dhigay oo magaca iska soo bedelo oo magac kala soo qaado wallahi oo bilaa hadaad siigayso walaal oo saydaanku ka tanbadiyay ha dhageysanino damiirtaada inta ku hadhaadinine soo bedelo oo maxay halka iska dhageyso oo qalalka kala iska gal maxaan ka qabtaanade maxaan ka qabtaa iga qawma talka soo darbo isawac ya ku soo dhufo aan ka qabtay marka waxa weeyaan inaan ka dhiidin war luuq ma rabo inanta ma u gurmita adiga Norway joogay wala oo caawisid oo du istaagtaan ya waxaan wallahi oo bilaahi anigu ciil baabay hayba saakin taranka goostaa bay haysa
شرع شان فصحى شنطة إذا عشت طلع من كودا مايا سور ما بحا طلع سور ما نطقع وريار سور ما نطقع سور ما كوي ما دا شرع شان فصحى هي والله وبالله وطلع وان كوي ما نيا سوري إله إيمانك إسلامك يقار وان كوي ما نيا سوري قرب بانكو سينيا أنا قاعد عند لذا وحن أنا قاعد بسود دعوني يبا وريا أنا قاعد سور تجي أنا بقرب سنة شن فصح هاي سبتي الدنبا أنا قاعد يجوه رئيس شقينا شقيه أنت كارئيس فصح بان هاي وين نتجي سور هادي أي دون يسو أين يجبق إنني آمن يجو قبته والله وقف يجو رئيس بالطاق أنا إذا هذا ونص أركينا مركا وانا نتجي وانا لكل ميا وانا نعاونا يا مرقاتنا وانا فريا وروحنا ودل النمو أنا وإنتانو تقولي بقى أنا دقاليا waxa meesha yimaada waraga Yurub jooga ma dumar bay xiran karaan kan shaqade wallahi warsi ma nasracna isna la may raamanayna inaade ilaan dumar baan ahay wallahi gude saabax warsi waa nasraacnay way dhamaatay inaade waxan lama dul qaadan karade waxan dulqaadku way ka dhamaatay hooyaanahay waan wallahi banaan baxban ku sameynaya waxan ala aabud ku yaal ما online كون نقول له هبي وهايستان واللايف كله اسكوجو إيمانيا والله بلا فرحان ما نتوحي العق أنا قال لك قرب تاجن وحول بالله يري واحد دون سوان لقبانيا أنا جن الصداق له سوري كعب فردق وحول بعنا كوجو عاوينا إفرتين أدوني سد والله بلا ونكوي جنا سوري إلهي أحد جنا نكوي تاجن والرالي مكتين إن أنت سنان عاونه والرالي مكتين هذا قرص بهاتنا نديبنو ورالي مكتين إن أنا قرب كقبنو وريار واحد ولا شو عذابية ورما الله بدأ يرو الدنيا وإلهي فنقر سيدا بي عرور سومالي وقول دارن كران ورمي دلان تيو تغان ورهدي ورلا الكام مكسر ضادنا إن أنا قد بمانا نأرقنين ورهدي يرادان محايدة قارتانو كجن لكن وريارة دي قانو سيالنو وروحان وادلو النمو نعلا أبينكو يالي بلعونا على باكو قطالة wax ka dambeeyo la shiraada ma jirto bulucowni ragmatid intaasoo nin Norway joogta arma soo qaadi kartaa inan yar iyo midaad u siiga ka qaadid wariya waligaaba gawaad baad ahayd waligaaba siil ku nool baad ahayd waxa tahay macsininka lacag bartay waxa tahay ilaa hooyadaadii seen jirto wase annaga ma horta anigaaba ku soo qabanaya waa igu balan oo waa igu ahdi yaa inaad eedid waxan adbaltoga ka wadid wallahi fire bad ku ciyaaraysa oo billahi fire bad ku ciyaaraysa ya dabad gacmaha kula jirtaa nacla aabaha ku yaali waadna ku guban doontaa tanina waa tii kuugu dambeysay adiga iyo kan xunay cuuriyaanka ay gaariyoona saaran ee dameerka ah ee bini'aadinimada loogu talagelin wariya aniga seero wadwaalantahay ma dhiikatid maxaa ku wala wariya ma adigiiba ilaa adigu waxba duubtaa wax nagula dhuuqdaa waxbaan duubayaay qolkana wax duuba dhanba waa laga duubaya waaba laga saarayaaba inta aan naqaano ee iminka inoo cad waa in qolkan laga celiyaaba adiga kowka ah aniga wadwaalanta yimi soo qori kartid ya xalad digulaad xibiya ku hili aba yiilka was maqarafadu dhala ee gaar dhaxfa fadhiya wada daroogiista ay wax duubta all sida dudantiin afka cagni liga gelinaya qalkana ma sii joogaysan wax gasacyada wato way iniga dhamaatay inta la yaqaano adinka iyo gasacyadini hooyadinba fatadaan liga gelin far nacala aabiin ku yaale quruuc yahay bila waalidka ah ee maad aragtay ciilka ku soo koray ciyaal darbiga ahaan jiray daraaqada wada soo dhuqay badda soo qaaday xaar ku dhalay wariya bad baa inigu soo turtay Yurub bad baa in siday nolol ma haysataan sharci ma haysataan miyaa dadka ku qaraaraysaan war soo qabsadaan wallahi dhiigaygu kacay ilaahi ahadiga maanta dhiigaygu kacsan waraa gabadhu maanay caayisa ana badda soo maray oo dooni kantay qofka ay ka hadlayso maniga oo leedahay bad baa ku kantay yaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولاد بعدين سلام يا خيري ولاد هاي واحد بنبنون يسان واحد ما أهن ليش شرع بيان له قف الله على جولين كريه قف وحلوق يسان كريه من نمجرو
sharcina qof looguma hanjabi karo directina qof looguma hanjabi karo waxyaalahan qiyaaliga ee baaltoog yaalla iyo xaqiiqada dhabtaa kala saara qof soomaaliya inta tago qof soomaaliya intuu ka sheego layska saadiqi maayo midda kale waxa ku filan oo keliya booliskoo la madlin gareeyo bas ku filan qofkaasu wuu ii hanjabaya qofkaas waa dhibaataynaya asaga dabagal lagu samaynaya midda kale hooyada layskaga soo aadi maayo layska aadi maayo iskuulka la eegayaa baarahayinka carruur tagaan baa la eegayaa ayagoo meelna tegin bay waxay la xiriirayaan dadka macnaha qofkaas dadka barsoonka u ah ayay la xiriirayaan saasaa lagu ogaanaya ma garad waxyaalahan marka aad meesha ordaysaan oo dad baa wax loo dhimi karaa iyo waa bahaa iyo arrin baaltoog wey ma garad dawladdu iyadaa maxaa ku ihahdaa arrimahan u shaqale ilmaha dayacan ilmaha maxaa ku ihahdaa waalidka fiican waxayso ayagaa kaa og qof yar oo miskiin oo baaltoog jooga inta wargeeya la qaadaya ruux maxay tahay meeshu carruur baa meesha joogta dad waaweyn baa jooge qof u dhimi karaa ma jiro hataa qof abuusi kara ma leh wallahi marka arrinkan hadda aad wadaan waa baaltoog iskaga celiya basa wallahi baaltoog iska qofkii macnaha la handadana xaq wuxuu u leeyahay inuu asagu umadlin gareeyaba oo yidhaahdo qofkan waxa weeyaan dhib buu igu hayaa ma garad wallahi waxaa la siinaya digniin baa la siinaya waxaa la leeyahay haddii aad mar dambe aan kaa maqalno oo qofkaas uu kaa soo dacwoodo hay-aata islaali baa la leeyahay adi waleen magacaaga war aniga cidna waxba igama qaadi karto aniga nin cid wax iga qaadi kartaa wallahi inaysa jirin billahi tallahi baaltoog joogo kuwa wadankii la joogan waxba iga qaadi karin oo macnaha leebka oona ay dacweyn karin ma garad marka meeshaan waxyaalahan aad arkaysaan gabdhuhu ayagaa macnaha isjilcinaya ayagaa maxaan koraa dadka isku loogaya ayagaa moodaya in wax loo dhimi karo maxaa miskiin yar oo soomaaliya kuu dhimi karaa meeshaan sharciga waa loo sameeyey qof dulmi kara qof wax u dhimi kara midna ma jiro waa ka baqaa ninka la yaalaba wajiilow hufas waa ka baqaa weliga yeeshadunka nin baqasoon raga ma maxaad ka leedataa sheeko carruureed bay noola imanaya abufas waa ka baqda abufas laba nin oo saaxiib oo magaalo wada degan baan ma garad maya jambal caata ahy doonayaan inay ay sameeyaan ma garad abufas anna la iguma diri karo anna la ima diri karo laba nin oo muddo karo odayaal oo caaqiliin oo maxaa kura saaxiiba oo magaalo wada degan baan ma garad hadduu qabiilka anigu aan ka dhashay maanta o dhan caaya hayana I don't care haddaan isaaq oo dhan maanta kala roga hayana wallahi nuusan ka hadlayn ma garad marka arrimahan aad wadaan oo yani maxaan ku rahdaa orniyo midda kale dadka cadba u badan baaltoog wallahi billahi tallahi dad baa caqli carruureed yeeshay war konton jir caqligiisu uu yahay 10 jir baa baaltoog jooga oo doonaya inuu kula sheekaysto oo doonaya inuu maxaan ku rahdaa adiga war marka u horeysa maskaxdaada soo kori waxaa koray maxaan ku rahdaa jimsigiini baa koray caqligiinu ma korin xaqiiqda dhabta sababtu waxa weeye waxaad arkaysaa nin weyn oo oday oo maxaan ku rahdaa cirale oo qoraya waxaan munaasib ahayn qoraya oo 24 saac gabar Soomaaliyeed halka ku caayaysa murdo ku caayay war maxay ka wadataa war qofkaad la kaftami kartaa kaftanka weliba qurxan la kaftan laakiin maanta oo dhan waalid baad caayaysaa maanta oo dhan gabar baad caayaysaa maanta oo dhan maxaa ku waxaad ku nabantaa waa wax aad looga xumaado wey marka gabadha la yiraahdo suhuur waxay joogtaa wadankay joogtaa gabar sharciyeedna wey hooyo shaqaysata wey ilmaheeda ay haysataa cidna ma baadil garayn karto wallahi cid baadil garayn karta inaysan jirin ma garad booliska wadankan iyo maxaan ku rahdaa bana halkan joogana inta qof Soomaaliya u tago qofkaasaan isku dhacsan leeyahay waxaan waa hore la isku galgalan lahaa soo moogi qofkan waaba isku dhacsanahay ba haday inta ka gudbisa bas way loo qaban maayo ma garad qof hadduu kugu hanjabay ilmahaagaan geynaya meel ama dacweynaya intuusan asagu tagin hortee dacwo ka gudbi oo qofkaas in yani maxaan ku rahdaa asaga iyo adigu aad isku dhacsantihiin sheeg waxba loo qaban maayo waa lagu baaraynin anigu waan aqaanaa dad hadda maxaan ku rahdaa soo gala baaltoogan aqaanaa wallahi dad boolisa oo baaltooga soo galan aqaanaa ma garad meeshaan marka waa la wada joogaa cid maxnaa u dhuumanaysa ma jiro
gabura xataa even qofku haddii uu yani qofka uu sawiro ka keeno oo baaltoog dhexdiisa uu ka abyuuso oo qofkaas uu ku dacweeyo inuu yani qofkaas uu baadil garaynayo uu ku dacweeyo asagay la tegaysaa wallahi inaad er soo qaado ninka la yihahdo geelmaalow xeel dagaal inaad er soo qaado aniga haddaad magaca soo qaadatay haddaad soo qaadaninba aniga codkayga iyo magacaygu waa isleeyihiin qof yani maxaa ku rahdaa aniga iska kay dhigi kara ma jiro sababta waxa weya dadka la cod maahay anigu codkayga caan wey waxyaalaha aan ku badbaaday kamid tahay waxyaalaha aan ku badbaaday waxay kamid tahay inaan codkayga la koobigarayn karin oo qof aniga codkayga iska dhigi kara uusan jirin waa midaan ku badbaaday ilahi wax midnaqahayo wey midda kale qof baaltoog iiga cadow badan aniga ma jiro qof kasta oo baaltoog dad badan oo baaltoog joogo aniga cadowgaygaha jooga suhuur soo dhawaad baan ku salaama ma garan midda kale midkaan xunka ah oo wata maxaan ku rahdaa midka xunka watay meeyi midda kale waxaan anigu la yaabana dadkan gacmaha may soo taagtaan dadka caayahayo aflagaadeynaya ma intay gacmaha soo taagtaan halkaa iga aflagaadeeyaan kuma dhacaan hoos bay fadhiisanayaan waxa weeyaan maanta war anigu magaca intaan soo bedeshaan ada caayi karaa laakiin kartiya awood ma u leedahay intaad meega soo qabsatay inaad iga caydo may kuma dhacdin sababtoo waana lagaa af badan yahay warkaasoo aad baan ku salaama waana lagaa af badan yahay awoodna uma lihid inaad maxaan ku rahdaa aad magacaaga ku caytanto anigu haddaan qofkaan caayahayo magacaygaan ku caayaya qofkaan ammaanahayo magacaygaan ku ammaanaya laakiin dayuus noqon maayo intaa anoo baqahayo weliba dadka caayi maayo marka xubiyey walaashay arrintaa ka walwaleyna qof halkan wax ugu dhimi kara ma jiro midda kale norway waxay kaga duwan tahay yurubta kale waxay kaga duwan tahay waa dal biisa wey waa fareed wey qof uu dhibaatayn karaa ma jiro wallahi haddaad qof aad maxaan ku rahdaa aad aflagaada keliya u geysato oo booliska intuu u taga uu yihahdo qofkaas waa macnaha dhibaatadaas ugu hayaa uu yihahdo boolisku dhayalsan mahaye isla markaba wallahi wuu wacaya ma garan waxaa la siinayaa digniinta u dambeysay xataa even wallahi wuxuu saamaynayaa qofkaas haddii laga soo dacwoodo wuxuu saamaynayaa tvgiisa u saameynaya wallahi combyuutarkay u gelaysaa qofkaanu inuu yahay qof yani maxaan ku dhahdaa dhibaato qofkaan inuu yahay qof dagaalama qofkaan inuu yahay qof macnaha muamin sameeyo akhlaaq xun wallahi waxay u gelaysaa combyuutarka beri markuu shaqo soo raadsadana waa waayaya qof walbaba shantiisa lambar buu la cabsanaya dadkaan ku dhahayo waa la isdilhayaa iyo waa hebel baan u dhoofhayaa iyo dadkaas ku dhahayo been wey waa macnaha waxa weeyaan waa afka baarkiisa wey ma garan meeshaan qof walba magaca yar oo caataahu soo qaatay magaciisaa bedelan wuxuu usoo galayna maxaan ku rahdaa inuu entertainment ka qaata laakin si qaldan baa soomaalida u qaadan war waa la kartamaa dadku waa kaftamaa laakiin qof ku abuse kara baaltoog ma jiro warba adduunka ilaahay waxaa ugu liita qof gurigiisii joogo oo internetkiisa kasoo galaya oo lagu xukumayo waa qofka ugu liita wey waryaaya war kora nimayo kora meeshaan baaltoog wey real macnaha u qaadanina yaan lagugu maamulin adiga oo maxaan kora gurigaaga jooga yaan lagugu maamulin netka adigu aad leedahay yaan lagugu maamulin combyuutarka adigu aad soo degsatay yaan lagugu maamulin haddii alla ku maayo adiga xorriyadaada qofka binu aadamkaana muhiim waxa waa xorriyadiisa wey markaad adigu kalsooni aad isku qabto qof binu aadam kuma maamuli karo midda kale qol haddii lagugu aflagaadeyna lagu caayay extal taabtaa maxaa qof nolosha ka dhacay oo maxaan ku dhahdaa ay u dhamaatay maxaad 24 meeg ugu qabsanaysa oo la caytamaysaa kuwa hadda waxay doonayaan inay aniga maxaan ku dhahdaa sabuurada igu caayaan tribati caytada maanta oo dhan aniga ma laga yaabo inaad idin la mid noqdo ma laga yaabo wadada aad haysaan inaad igeysaan ma laga yaabo never wallahi ma laga yaabo aniga inaad wadada aad haysaan aad igeysaan midda kale qandacyare gacanta ma soo taagan kartaa kolley waxaan umaleeyahay habal baa qaradaa ku dhashay kolley xalaal kumaada dhal wuxuu darab inaan weyse qabin wiilkii baa taayo wadaad looma geyn aabaha naagu soo waday ee weladka xalaalhu sidaan wax uma sheegeen sababta waxa weeye xalaal haddaad ku dhalatay qof aadan aqoonin aan ku caayin aan ku maagin maadan caydeen ma garatay guriga dhaqanka xun ilmaha ka soo baxayna waxa lagu yaqaanaa akhlaaq xun buu la yimid qofka dadka hadda qof aad isku dhacdeen haba ku caayo haba ku aflagaadeeyo laakiin qof iidan is aqoonin weligiina wax isku qabanin ku aflagaadeynaya ku caayaya waxa weeyaan macnaheedu waxay tahay guri akhlaaq xun buu ka soo baxa inta dugsi quraan la geeyana afkiisa xaaraanta lagama tirin ma garat sababtu waxa weeyaan hadda macna ii samayn mayso cayda adigu aad caayayso sababtu waxa weeye
aniga waxa wax ii dhimi kara qof leef ii yaqaana laakiin qof aan anigaba i aqoonin baaltood anoo ka hadlayo una arkay waxba iima dhimi karo sababta waxa weeyaan ul mugdi kutuur buu wadaa aqoon iima lahan midda kale dadku hadday is yaqaanaan laysma bacaayeenba marka insha allahu karim khiyaarey meega adinkaa kule insha allah waad mahadsantihiin inaan qof lagu abyuusi karin baal toog jooga inaan lagu abyuusi karin qof walba uu niyadaada geli inaad sheekh ayuub cafis inaad aad umahadsantaa qof kastowba macnaha niyadaada geli inaan lagu abyuusi karin qol kaan fadhina qof yaan la oran anigu waxa weeyaan baalto qol allaal qolkaan doonaan galaa ma garan guruub kuma xirni dad gaara kama tirsani anigu waxa weeyaan keligay baa socda meeshaan waxa weeyaan qabiil uma soo galo asxaabta macnaha qofkii macnaha ixtiraamaa qofkii yani aan ixtiraamin waxba iima gelin aniga warisay magacaas magac bugu weye magac bugaa lagu dhiibay magac bugaa lagu dhiibay ma garat iska hayso ma garat marka insha allahu karim khayr meega adinkaa kule waad mahadsantihiin dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu meeg filiy ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت دمانتي وان سلام يا قول كنت كجرتو وحويه dhibaatada taale horta qolkan meeg lama helo waxa weeye ii sheeg dad dhowr qofood ayaa isku qabsata meega inuu waan salaamaya luuq ma tabow waxa weeye abti sheegan ku haya horta waxa weeye meeshan qabiil hadda u soo gasho horta aan iska ragaabiyo kaade ku halga luuq ma tabow waxa weeye abti rag waxba isu sheegaan ku sheego لأنه وحوي هرت بعض توقعات هذا قبيلة كده فعيا الله كل حوالنا وحوي وحفة إذا ماشي مجلس ضد كسوق ضد وحوي قبيل كهلا يقول يقشك هذا